gudoomiyaasha xisbiyada qaranka komishanka qaranka komishanka waanu sidana casuulay asxaabta qaranka iyo ururada golaha wakiilada xildhibaanada ka jooga golaha guurtida xildhibaanada ka jooga boorka sare akademiga nabadda iyo horumarinta steering committee APD haweenweynaha dhalinyarada aqoon-yahanada jaamacadaha ka yimi iyo ururada civil society-ga aanu bahwadaagtana ayaan ka wada shaqeyno howlaha qaranka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida ku qoran boorkan akademigu wuxuu waqti geliyey sidii caadada ahaydna ee jiri jirtayna la samayn jiray xilliyada doorashooyinku soo fooleeyeen iyo markay naga jeestaanba researchyo madax bannaan ama cilmi baaris madax bannaan baan samaynaa kuwa waxa lagu fukuraa oo dadka lagu noqdaa oo la weydiiyaa si madax bannaan bal hadda processkii aanu marnay hadduu mid doorasho deegaan ahaa ama wakiil ahaa ama baad madaxtooye ahaa xilliga ayna dhaafay howlihii aynu gabagabayn dadku dhulka ay u arkayeen inay ka jiraan caqabado daloolooyin si marka dambe loo soco oo loo hagaajiyo sidoo kale loogana faa'iidaysto kuwa soo socda in maaragtay dhulka laga feejignaado waxaanu halkan ku casuunay maanta oo aan mahad celinaynaa gudoomiyaasha xisbiyada qaranka oo si mug looga soo qayb galay ujeeddada aanu soo casuunay iyo dadka doorashooyinka ku shaqada leh hadday tahay mid wakiilo iyo mid dowlado hoose iyo komishanno ay yihiin waxaanu halkan isugu yeedhnay inaan soo bandhigno xog ururin aan ka soo ururinay dalka badankiisa taasoo caqabadaha doorashooyinkii aan soo maray iyo dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaaggeena haysta si madax bannaan dadka loo weydiiyey aragti hufan oo huwan maaragtay wadaniyad iyo jecel ay ka muuqato oo dhulka ay u arkaan in aynu u baahanay inaynu iska gufayno ama aynu iska toosino la tilmaamay oo maaragtay la farta lagu fiiqay baa halkan lagu soo bandhigi doonaa waxaanu jecelahay annagoo aada idinku mahad celinayna inaanu helo ballanqaadkiina asxaabta qaranku ay marka la soo jeediyo warbixintaas wixii ka soo baxay waqtigoo inagu yar waxaanu hadalka siin doonaa saddexda xisbi qaran iyo komishanka haddii markaa ay dee dadka wixii howlo kala lihisa ay isaga fasaxmaan waxa ugu badan ee aanu ka rabnaana waxa weeye waxaa jiri doona kulamo dambe kulamadaasoo wixii halkan ka soo baxay shirka qaybtiisa labaad oo lagaga sii hadli doono lagaga sii doodi doono iyo wixii lagu kordhiyeyba aanu la wadaagi doono si loo helo soo jeedino iyo recommendations wanaagsan oo laga duuli karo laga shaqayn karo intaan la gaadhin doorashooyinka dambe marka inagoo waqti haysan hadalkan ku dhaaran maayo aad iyo aad baa u mahadsantihiin